السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جنة الكمركة للسود واضح أدي هذا وما سنتهين ما أنت جمعة وناكسن يعني ذي الله يهي مالك استوى الجوكتان ما أنت جعلك ومرير ما أنت جعلك سو مالين كستما كل ما أنت جعلك لو دبل دقة ليرين تو دبل دقة سنة وحن لا يهي جعل وناكسن مقالك محربا إن ندي كل وداقو تضبات كي كوباد كيس كي محكمة دا هويني دي مدحدا كاهيد أوروكا فيدي نور فيوجر أي متكمدا ملكيلياشي مقايدة سفاري ريستورانت oo ku tiilay Minneapolis ayaa soo gabagabowday toddobaadkii koobaad ayaa shalay soo gabagaboobay maanta maxkamadda ma jirto waa maalintii jaceylka waa iska holiday sidoo kalena isniintana ma jirto waa holiday kale talaadada ayaa dib la isugu soo laaban doonaa week labaad haddaba arbacadii iyo shalay oo khamiis ahayd waxaa loo kala yeeray marqaatiyaal muhiima arbacadii waxaa loo yeeray sargaal ka tirsan FBI-da oo isagu ka warbixiyay kaamarooyin ay ku xirteen meelaha cuntada dadkan ay sheeganayeen inay ku bixinayeen maxay ku arkeen shalana sidoo kale waxaa loo yeeray haweeneyda qaabilsan iskuulada public ah ee dowladda dhinaca cuntada u qaybisa ee St. Paul oo ah degmada labaad ee ugu weyn ee gobolkaasi Minnesota iyaduna bal waxa ay sheegtay sida ay suuragal aysan u ahayn in intaasoo cunto ah toddobaad kasta la bixiyo ayay ka warbixisay aan ku hormaro maalmada arbacada ahayd waxaa loo yeeray nin ka tirsan FBI-da oo waliba special agent oo magaciisa la yiraahdo Jared Kerry waxa uu sheegay in 12 kaamaro ay ku xirteen 12 goobood oo dadkan lacagtan lagu haysto hadda ku eedeysan ay leeyihiin cunto ayaan ku bixinaynay marka kaamarooyinkaasi waxa yiri si qarsoodi ayaan ugu xirnay waxaan ku xirnay bishii December sanadkii 2021 dadkan soo qabqabashadooda waxay bilaabatay bishii September 9 sanadkii 2022 marka sida muuqato ku dhawaad muddo sanad ka badan ayaa lala socday dadkan oo kaamarooyinkaasi FBI ay kala socdeen oo ay ilaaleysanayeen waxa meesha galaya dadka cunto ka qaadanaya wax kasta oo ay u xisaabsanayeen arbacadii ayaa lagu soo bandhigay marka maxkamadda oo xeerbeegtida la tusay sida ay halkaasi wax uga socdeen muuqaaladu waxa ay muujinayeen in FBI-du ay si toos ah ula socotay waxyaabaha halkaasi ka dhacay gaar ahaan maqaayadda Safari Restaurant oo Lake Street Minneapolis ku taala 12 milyan oo lacag ah ayay ka qaateen Feeder Our Future oo waxay yiraahdeen cunto ayaan bixinaynay waxana ay sheegteen 4,000 ilaa 6,000 toddobaadkii toddobada maalmood inay quudinayeen laakiin sargaalkan ka tirsan FBI-da waxa uu yiri anagu tirada aan aragnay iyagoo meesha galaya oo ka soo baxaya isla markaana cunto xitaa gacanta qaarkood ay ku wataan 40 qof ma aysan ka badnayn sidaas darteed waxa uu yiri muddo 6 toddobaad oo halkaasi aan kala soconay waxa uu yiri kaamarooyinkoona intaasi ayayna tuseen sidoo kalena sargaalkan ka tirsan FBI-du waxa intaasi ku daray maqaaxi kale oo ninkan Salim Saciid oo isagu maxkamadda Amy Park la saaran maxaruun oo ku lahaa St. Paul oo deli la yiraahdo isaguna waxa uu sheegay 1800 in lagu quudinayay maalin kasta toddobada maalmood waxa uu sheegay 23 qofood isku celceliska in ay ka arkayeen in halkaasi ay galayeen oo ay ka baxayeen marka dadkan dokumentiyada ay lacagta ku qaadanayeen oo Feeding Our Future ay u tirsanayeen waxa ku qornaa intaasoo caruur 4,000 ilaa 6,000 inay quudinayaan laakiin kaamarooyinka la tusay xeerbeegtida oo FBI-du ay soo bandhigtay waxay muujinayaan tiradaasi xitaa inaysan ba isku dhaweyn oo xitaa boqolaal aysan dhamayn dadka imaanay goobtaasi oo cunto ka qaadanayay waxa qareenada ay ku andacoodeen Salim iyo waliba ay sidoo kalena in Amy Park in ay jirtay albaab gadaale oo maqaaxida ah oo taraagi ay ka baxayeen wuxuu sargaalka FBI-da uu sheegay inay arkeen baabuur halkaasi imaanaysay laakiin tirada la sheegayo iyo baabuurta halkaasi imaanayso oo iyaguna cuntada gacanta looga dhiibayay xitaa ma aysan isku dhaweyn oo wax isku dhow ma aysan ahayn marka sargaalkan ka tirsan FBI-da sidaasi ayuu arintaasi ku warbixiyay sidoo kalena waxaa jirtay in la soo istaajiyay maxkamadda haweeney la yiraahdo iyadana Stacy Cobbin oo dhinaca iskuulada dawladda ee public ee St. Paul u qaabilsan dhinaca cuntada ama nutritionka haweeneydaasi dhowr su'aalood ayaa la weydiiyay markii maxkamadda la soo hor istaajiyay waxa su'aalaha la weydiiyay kamid ahaa ama waxa jiray dad kale oo iyagu bixinayay cunto kumanaan ah oo bakisyo ku jira isla markaana sheeganayay in caruur ay quudanayaan maalin kasta oo adinka aan ahayn maya ay arintaasi ku jawaabtay waxa la yiri sidoo kalena ma waxa jira urur aad ka warqabto oo St. Paul ka jira oo isaguna cunto 3,000 oo caruur siinaya maalin kasta
maya ayay ku jawaabtay. waxaa la yidhi sidoo kale miyaysan ahayn inaad ka warqabto haddii ay jiraan ururo kale ama hay'ado kale ama dad kale oo cunto siinaya caruurta xilligii coronaviruska uu jiray islamarkaana caruurta iskuullada ay joogeen. waxay tiri haa inaan ka warqabna ayay ahayd. marka iyadoo iskuullada St Paul ayuu hadlaysay halkaasi marka maqaayadda Delhi waxaa xaruntaasi sheeganaya in cunto uu ku bixinayo Salim Saciid oo maxkamadda la saaran Amy Back. marka waxaana hadda kaamarooyinka sidaan idiin sheegay 23 qof ayay FBI-du sheegeen kaamarada meesha ay ku xirteen inay arkeen maalin kasta inay sii galayeen oo ay ka soo baxayeen. sidoo kalena waxay tiri haddii cunto intaasi la eg aad u baahan tahay inaad bixiso waxay u baahan tahay horta goob weyn oo cuntadaasi lagu kaydiyo, shaqaale fara badan ayay u baahan tahay. waxayna sheegtay arrintaasi inay ila muuqato ayay tiri inay tahay arrin khiyaali ah oo aysan jirin cunto intaasi la eg dad bixinayay. sidoo kale qareenka Amy Back ayaa waxaa la weydiiyey Amy Back iyada nafsad ahaanteedu markhaati fur ma samayn doontaa. marka wuxuu yidhi arrintaas iyada ayay ku xiran tahay welina ma aanan kala wada hadlin ayuu yidhi go-aankaasina iyada ayaa iskale. marka sidoo kalena qareenka Amy Back waxuu hadda isaguna uu ku andacoonayaa in Amy Back aysan ka warqabin in arrintan musuq maasuqa oo dhacaysay laakiin dadka maanejarada iyada ka hooseeya ayaa arrintan sameynaya ayuu yidhi iyadu maba aysan ka warqabin. sidoo kalena haweeneydan dhinaca cuntada u qaabilsanayd gobolka gaar ahaan St Paul iskuullada publiga ah waxay sheegtay in arrintaasi ay cunto bixinta markii ay tiri 1000 cuntaha ayaan bixinay annaga wax weyn ayay nala ahayd ay tiri inagoo haysano shaqaalo ilaa 300 oo iskuullada xitaa basaskooda ay cuntadaasi guryahooda ay ugu geynayeen caruurtii iskuullada oo guryaha wax ku baranaysay. arrintaasi wax weyn ayay nala ahayd anagoo haysano shaqaalihii iyo weliba kitchenkii wax lagu karin lahaa anagoo haysano waxay tiri arrintaas waxay nala ahayd sidoo kale wax aad u weyn. waxaa sidoo kalena jirta in guri uu ku gatay Salim Saciid lacagtii uu qaatay oo ku yilay Plymouth oo ilaa $1 milyan uu ka bixiyay in ay dawladdu gacanta ay ku soo dhigtay. dawladdu waxa ay sheegtay oo xafiiska xeerlaalihi uu sheegay lacagtii 250 milyan ahayd ee la lunsaday waxa uu yiri 66 milyan ayaan ilaa hadda soo celinay. sababta aan u soo celinay waxay ahayd bangiyo lacagtii dadkii ay qaateen qaarkood ugu jirtay ayaan bangiyada xanibnay wanaga ayaana la wareegnay hantiye ay iibsadeen baabuur guryo waxyaabihii ay iibsadeen waan ka soo celinay iyo sidoo kalena assets waxyaabo kale oo iyaguna dadkaasi ay hanti ay lahaayeen gacanta ayaan ku soo dhignay sidaasi ayay inoogu suura gashay in aan 66 milyan aan hadda soo celino oo kamid ah 250 milyan. sidoo kalena waxa arinta muhiimadu ay tahay in marqaati furka waxa muhiimada lagu saarayay in xeerbeegtida lagu tuso sida aysan suuragal ku ahayn tirada cuntadaasi la sheegay in caruurtaasi eedeysanayaashu ay sheegeen in ay siinayeen maalin kasto in aysan suuragal ahayn in xeerbeegtida la tuso ayay arintaasi ay muujinaysay. sidoo kale sargaalka FBI-da ka tirsan oo arbacadii marqaati furka maxkamadda loo soo istaajiyay ayaa waxa uu sheegay in uu kala garanayo farqiga u dhaxeeya kumanaan cuntaah oo la bixiyay iyo sidoo kale dhowr cuntaah oo la bixiyay. sidaa darteed ayaa waxa uu yiri waxyaabahan halkaasi ku aragnay ma aysan ahayn cunto aad u fara badan oo la bixinayay. waxaa sidoo kale goobta lagu soo bandhigay Amy Back in jeegag ay u qortay maqaayadda Safari Restaurant oo mid waliba uu ka badnaa $1 milyan ayaa halkaasi lagu soo bandhigay. marka waxa uu yiri sargaalka FBI-da ka tirsanaa ma jirto ayuu yiri wado ay intaasi oo cunto ah muddo bil ama bilo gudahooda lagu bixin karo. wuxuuna sheegay arrintaasi gabi ahaanba inaysan suuragal ahayn. marka sidaan idiin sheegay toddobaadkii koowaad ee maxkamadda ayaa soo gabagaboobay shalay iyadoo sidoo kalena maanta oo jimco aysan maxkamadi jirin isniintana ma jiri doonto. talaadada ayaa wiiga labaad ee maxkamadeynta Amy Back iyo Salim Saciid ay dib u bilaaban doontaa. dadka markhaatiyaasha ay la keenaya maxkamadda ayaa halkeeda ka sii socon doona. labada eedeysane si aamusan ay maxkamadda u fadhiyeen qareenadooda ayaa haddii su'aalo la weydiinaya dadka markhaatiyaashana su'aalaha weydiinayay iyagu si aamusnaana ay goobta u fadhiyeen in ay labadooduba ay markhaati fur samayn doonaan oo istifaaci doonaan in kalena lama ogo. arrintaasi qareenadooda ayay kala tashan doonaan iyaga ayaana go'aan ka gaaraya sida qareenadoodu ay sheegeen. aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sida iyo nabadgelyo.